بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkan waxaan idinkula wadaagayaa haddii eebbe idmo hogaamiyaha kaliya inta la ogyahay soo maamulay dhulka geeska Afrika muddo 15 sannadood ah. hogaamiye ku caan baxay dagaalyahanimo, geesinimo, guul, cadaalad iyo deeqsinimo. hogaamiyihii Soomaaliyeed ee difaacay qabriga nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. أحمد بن إبراهيم الغاسي oo ay carabtu yaqaanaan Ahmed bin Ibrahim Ashwal oo ah Ahmed bin Ibrahim kii gurana sidoo kale ay xabashadu ugu yeedhaan Ahmed Garayn Soomaaliduna ay u taqaano Ahmed Gurey wuxuu ku dhashay sanadkii 1506 meel u dhaxaysa magaalada Har iyo qalcadda Jaldiisa oo lagu magacaabo Hubad. sidoo kale waxa la sheegaa inuu ku dhashay Saylac markuu imaamku weynaaday wuxuu guursaday gabadh uu dhalay Amir Mahfoud oo ahaa amiirkii magaalada Saylac oo magaceeda la oran jiray Dalwanbara ama Baati Dalwanbara sida ay kala tilmaamaan ilaa taariikhdu. Imaam Ahmed Gurey markii uu xukunka la wareegay wuxuu dhaxlay dawladdii Cadaal oo aad u daciiftay sidaas oo tahay haddana wuxuu ka shaqeeyay sidii uu meesha uga saari lahaa kala qaybsanaanta iyo farqi u dhaxeeyay imaaradihii muslimiinta ee kala duwanaa. wuxuu meesha ka saaray markii uu la wareegay xukunka kala qoqobkii dawladdiisa fawdadii qaski iyo cadaalad darradii kadibna wuxuu u soo jeesaday sidii uu u caawin lahaa dadyoogii muslimiinta ee xoogga iyo dulmiga lagu haystay. wuxuu galay imaamku dagaallo aad u fara badan balse waxa ugu caansan dagaalka lagu magacaabo Shimbira Koore. dagaalkii Shimbira Koore wuxuu dhacay sanadkii 1529. dagaalkan Shimbira Koore ayaa ah dagaal taariikhda galay oo aad u ballaadhnaa iyadoo ay labada dhinacba si adag u soo diyaar garoobeen. dhanka boqortooyadii Xabashida oo lagu magacaabi jiray Solomonic Dynasty waxaa hogaaminayay nin lagu magacaabi jiray Libna Dingal. wuxuu watay ciidan dhan guud ahaan 216,000 oo askari oo ay kala ahaayeen 16,000 oo fardooley ah iyo 200,000 oo ciidanka lugta ah. dhinaca muslimiinta haddii aan jaleecno waxa uu imaamku hogaaminay ciidan dhan 12,560 askari iyaga oo kala ahaa 560 fardooley ah iyo 12,000 oo ciidanka lugta ah. haddaba waxay labadii ciidan isku galeen oo ay fooda isku saareen meesha lagu magacaabo Shimbira Koore xilligaas oo uu imaamku jiray 23 sano oo kaliya. dagaalkii markuu muddo socday aadna uu khadhaadhaaday waxa kaliya ee la maqlayna uu ahaa dhawaqa seefta iyo fardaha danankooda boorkina meel walba isqabsaday. sidoo kale labadii ciidan ee ishayay kala garan waayeen saaxiibadood iyo cadowgoodii. qulqulkii dhiiguna uu noqday sidii daad oo kale meedka iyo madaxyada la jarayna ay noqdeen kuwa lagu turunturoonayo. dagaalkii barqinkii bilowday markuu casar gaabad marayo intaasna aan la kala nasanin gaajo oon iyo daalna khaati laga taagan yahay isla markaana dhimashadii badatay dhaawiciina waraaqayo ayay hal mar ciidamadii Libna Dingal dabada jeediyeen. markaasay ciidamadii imaamku hal mar takbiirta isku dareen iyaga oo caydhsanaya ciidankii Libna Dingal oo kala firxad ahaa. dagaalka waxaa Libna Dingal lagaga dilay 10,000 oo askari iyo 114 qays oo ahaa hogaamiyaashii ciidankiisa. sidoo kale 600 oo faras ayaa iyagana laga boqnogooyay. dhinaca kale dagaalkaasi waxa kaga shahiiday ciidankii Imaam Ahmed Gurey 5,000 oo askari. dagaalka Imaam Ahmed Gurey wuxuu ka soo baxay maalinka isaga oo guul aad u ballaadhan gaadhay sidoo kale soo furtay hanti iyo xoolo aad u fara badan oo ay ka baxsadeen ciidamadii gaaladu. dagaalkan Shimbira Koore wuxuu ahaa kii ugu weynaa ee uu abid galo imaamku wuxuuna noqday dagaal miisaankii loolanka labada dhinac madaxiisa minja u rogay. dagaalkaasi ka bacdi waxa ay isaga iyo ciidankiisii ku mashquuleen sidii ay u xoreyn lahaayeen dhammaan dhulkii imaaradihii muslimka ahaa ay ka jireen oo ay ku soo durugtay boqortooyadii Xabashidu taasi oo cadaadis iyo dulaysi ba'an ku haysay. wuxuu imaamku xukumay laga bilaabo dhulka ay maanta Eritrea ku taalo ilaa dhulka Canfarta oo ay ka talin jirtay imaaradii muslimka ahayd ee Ifat ilaa Bali iyo xuduudda Kenya. sidoo kale wuxuu gacanta ku hayay dhulka Shawa oo ay maanta ku taalo caasimadda Addis Ababa. boqortooyadii Boortaqiiska oo xilligaasi ka mid ahayd awoodaha ugu waaweyn ee Yurub ka jiray saameynna ku lahaa meelo badan oo caalamka ka mid ah isla markaana saldhigyo ku yeelatay xeebaha bariga Afrika meelo ka mid ah. waxay imbaradoriyadaasi damacday inay xaddo oo ay la baxdo jidhka Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyaga oo rabay inay ku duulaan dhulka barakaysan ee xaramka
waxay xidhiidh iyo garab istaag u muujiyeen boqortooyadii xabashida iyaga oo soo diray ciidan gaadhaya 450 askari oo uu hogaaminayay nin lagu magacaab jiray Christopher D. Gama oo ka soo ruqaansaday fadhigiisii dalka Hindiya. Waxay ka soo degeen dekadda Massawa ee waddanka Eritrea iyaga oo watay hub iyo gantaalo casri ah iyadoo ayna haysanin labadii dhinac ee horey ugu sii hardamayay geeska Afrika oo iyagu inta badan ku dagaalamay seefo, leebab iyo warmo. Markuu imaamku ka war helay ninkaasi iyo ciidankiisaba ayaa uu waraaq u diray oo uu ku leeyahay ama isaga noqo dhulkaasi ama isa soo dhiiba ama u diyaar garooba dagaal aad la gashaan muslimiinta. ninkii markay waraaqadii gaadhay ayaa uu diiday dalabkii imaamka. dagaalkii koowaad ee imaamka iyo isbahaysigii Boortaqiiska iyo Xabashida wuxuu ku dhaxmaray meel dhulka Tigreega ka mid ah oo la yiraahdo Anasa sanadkii 1542. dagaalkaasi waxaa lagu jabiyay ciidankii imaamka iyada oo loo adeegsaday hubkii casriga ahaa ee ay wateen Boortaqiisku. jabkaasi kasakow waxaa dagaalka lagu dhaawacay Imaam Axmed Guri qudhiisa. maalmo kadib ayay haddana labadii ciidan fooda istareen. haddana mar labaad ciidankii imaamka ayaa jab culus loo geystay wuxuuna ku sigtay inay gacanta ku dhigaan. wuxuuna imaamku dib ugu gurtay dhinaca buuraha Soobuul ee dhulka Canfarta halkaas oo lagu dhakhtarinayay. intii lagu dabiibayay ayuu isaguna u qayshaday khilaafadii islaamka ee hogaaminayeen Turkigu saldhigooduna ku yaalay Saabit oo ku taala Yaman. dawladdii Cusmaaniyiintu iyada oo ka jawaabaysa codsigii imaamka ayaa ay soo direen 900 oo fardooley ah oo qoryahoodii wata 10 madfac oo casri ahna wata. bishii August sanadkii 1542 ayaa waxaa fooda isku daray meesha la yiraahdo Walfa ciidamadii imaamka oo ay wehelinayaan markan ciidamadii Cusmaaniyiinta iyo ciidamadii isbahaysiga Xabashida iyo Boortaqiiska. waxaana halkaasi si aad u foolxun loogu jabiyay ciidamadii Boortaqiiska iyo kuwii Xabashida waxaana gacanta lagu dhigay qoortana laga jaray Christopher D. Gama. sidoo kale waxaa intii badneed laga furtay wixii hanti iyo hub ay siteen. ugu dambeyn waxaa lagu tilmaamaa inuu ku dhintay dagaaladii u dhaxeeyay Xabashida iyo ciidankiisii. dagaalkaasi dhexdiisa ayuu nin Boortaqiis ah la helay rasaas. wuxuu ka tagay taariikh aan la ilaawi karin ilaa iyo maanta. nasiib darradu waxa ay tahay in dhalinta Soomaaliyeed iyo dhalinta guud ee muslimiintu aanay ka warqabinba hogaamiyahan muslimka ahaa ee u jihaaday diinteena islaamka isaga oo gaarsiiyay diinta islaamka meelo aanay hore u gaadhin. لكن اليوم كم من أبنائنا من يعرف سيرة هذا البطل الذي كان له فضل عظيم على الإسلام والمسلمين في القرن السادس عشر الميلادي. muuqaalkan kooban runtii uma qalmo in lagaga sheekeeyo hogaamiye dhul aad u ballaaran 15 sano maamulayay balse waa iga xasuusin uun